kulan wanaagsan daawade halkani waa madasha wararka ku soo dhawaada wararka maalinlaha ah oo xilligan oo kale aan idiin soo gudbino qodobada aan idinku heynana waxaa kamid ah Turkiga oo Muqdisho ku wajahaya dhimbilo dab ah oo kaga imaanaya al-shabaab maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle oo laga reebay lacag malaayiin ah oo loogu deeqay yaa ku soo baxaya doorashada dhuusamareeb marunba in qorqor uu xaalka ku adag yahay maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ka wada hadlay iskaashi labada dhinac Mareykanka oo sheegay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday Lamu in dad Kenyan ay gacan ka siiyeen iyo muwaadiniinta Israa'iil ee ku dhaqan Itoobiya oo looga digay weeraro al-shabaab ay ka geysan karaan dalkaasi waa Sabti 18 bisha koowaad January sanada 2019 haddii aad ku cusubtahay channelkan subscribe saar si aad ula socoto wararka yaga maalinlaha ah oo sidoo kale furgan baleelka si aanay ku dhaafin wararka yaga joogtada ah haddii aynu ku bilowno Turkiga ayaa Muqdisho ku wajahaya dhimbilo dab ah oo kaga imaanaya al-shabaab ayaa hadda u muuqanaya in weerar adag ay ku hayaan shaqaalaha Turkiga ee jooga Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho maanta al-shabaab ayaa gaari ismiidaamina waxa ay la beegsadeen ama ay la eegteen shaqaale Turki ah oo dhismo ka waday wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye waxaana dhaawac uu soo gaaray qaar kamid ah shaqaalihii Turkiga qasaaraha ilaa ay hadda in ka soo aanay cadeen laakiin waxaa jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa halka uu qaraxa ka dhacay al-shabaab waxay sidoo kale xalay weerar dhinacyo badan ah ay ku soo qaadeen magaalada Afgooye ee Shabeellada Hoose iyadoo weerarkaasina saraakiisha ciidanka dawladda ay sheegeen in wax qasaaraha aanu ka soo gaarin balse dagaalka oo saacado badan qaatay ayaa ugu dambeyntii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxay dib ula wareegeen goobihii al-shabaab weerarada ay ka soo qaadeen waxay ahayd 18 November ee sanadkii tagay 2019 markii al-shabaab weerar ay ku qaadeen shaqaale Turki ah oo dhisayay wadada X Control Afgooye halkaas oo dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray shaqaalihii Turkiga ay sidoo kale in ka badan 100 qof oo Soomaali ah waxaana dhaawac uu ahaa mid intaa ka badan al-shabaab ayaa horay ugu digtay shaqaalaha Turkiga oo ay sheegtay in ay si joogto ah u beegsan doonto inta ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa laga reebay lacag malaayiin ah oo loogu deeqay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kaga dhawaaqay mashruuc dhan 112 milyan waxaana liiska ka soo muuqan waayay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug liiska waxaa safka hore kaga jira maamulada Jubbaland iyo Puntland oo xukuumadda ay isdiidan yihiin siyaasad ahaan waxaana muuqata in xilligan dawladda ay la macaamilayso maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland oo siyaasad ahaan ka aragti duwan Jubbaland iyo Puntland ayaa helaya malaayiin dollar ah xilli ay ka soo horjeedaan dawladda dhexe ee Soomaaliya laakiin sababtu ilaa ay hadda ma cadda siyaasiyiinta Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug ayaa dhaliilay hadalkan marka uu ka soo baxay kadib wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyagoo sheegay in aysan cadaalad ahayn hadalka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mr. Bayle oo sheegay in Puntland iyo sidoo kale Jubbaland ay helayaan malaayiin dollar markana haddii aynu aadno magaalada Dhuusamareeb waxaa jira warar hoose oo sheegaya in xaalka uu ku adag yahay musharax qorqor oo la aaminsanaa in ay gadaal ka riixayeen dawladda federaalka Soomaaliya warar hoose oo aan helayno ayaa sheegaya in xilligan uu jiro culays siyaasadeed oo uu wajahayo musharaxa ay wadato xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Qorqor xildhibaanada Galmudug ayaa maalmihii dambe waxaa aad loogu eedeynayay in ay soo saartay xukuumadda Soomaaliya isla markaana aysan dooran karin qof aanay ahayn musharax dawladda ay wadato oo ah siyaasiga Axmed Qorqor wararkaas ayaa la sheegayaa in ay la qiwaayeen xildhibaanada lagana yaabo in meel kale ay u weeciyaan codadkooda doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug waxaa ku soo baxay Dr. Gacal oo la aaminsan yahay in xukuumadda ay wadatay waxaana taasi ay keentay shaki badan oo ku aadan in uu ciriiri ama uu khalkhal galo siyaasiga Qorqor oo la aaminsan yahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay wadato isla markaana la hadal hayaba in uu noqon karo madaxweynaha maamulka Galmudug musharaxiinta iyagu u tartamaya xilka madaxtinimo ee Galmudug gaar ahaan kuwa u tartamaya madaxweynaha maamulkaasi ayaa cabsi xoogan waxa ay ka qabaan in lagu shuban karo
isla markaana uu soo bixi karo siyaasiga markaa dowladdu ay wadato gaar ahaan xukuumadda federaalka Soomaaliya laakiin marka la eego shakiga iyo sidoo kale hadallada soo baxaya ee xildhibaanada ayaa u muuqan kara in gabi ahaanba daaqada uu ka baxo siyaasiga Axmed Qoorqoor oo laga cabsi qabo in madaxweynaha Galmudug uu noqdo madaxda maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland ayaa shir waxa ay ku yeesheen magaalada Boosaaso madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale kan Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa ka wada hadlay iskaashi labada dhinac ay wada yeeshaan iyagoo ka wada hadlay sidoo kale amniga iyo xiriirka labada maamul in la wanaajiyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo hadlay ayaa sheegay in dhankiisa diyaar u yahay in si dhow ula shaqeeyo maamulka Puntland oo siyaasad ahaan ay isu dhow yihiin marka loo eego maamulada kale ee hadda jira waxa uu sheegay in marnaba aanu ogolaan doonin in dalkan ay ka dhici weyso doorasho qof iyo cod oo dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso Axmed Madoobe ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aanay doonin in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod sida uu sheegay Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland dhankiisa waxa uu sheegay in diyaar u yahay markasto in uu la safto ama uu difaaco maamulka Jubbaland oo siyaasad ahaan dowladda federaalka Soomaaliya ay aad isaga soo horjeedaan iyadoo xusid mudan tahay in madaxweynaha hadda talada haya ee Jubbaland wali dowladda federaalka Soomaaliya aanay u aqoonsanayn inuu yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland shirkaas ku saabsan waxa weeye iskaashiga labada dowlad goboleed ama labada dowladood xubnaha ka ah oo iskaashigooda inay yeeshaan uu dastuurku jireynayo dastuurku wuxuu jireynayaa inay dowladda dhexe qodobada 54 iyo 53 dadka si fiican loo akhriyo dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah inay iskaashi wada yeeshaan ay ugu arrinsanayaan arrimaha masiiriga laba maamulna waxay yeelan karaan iskaashi gaar u ah oo danahooda ay uga wada hadli karaan weli waa la sii xadiday laba walba wixii ka dhaxeeya dana amni dana horumar iyo iskaashi dhaqaale iyo mid bulsho marka Jubbaland wax badan ayaa Puntland ka wada xiriira sida horay ay Puntland iyo South West iyo Hirshabeelle ay shirar noocaas kale u galeen horayna intii igu horeysay Jubbaland iyo Puntland ay u wada galeen shirarkaas mid la mid yahay waxaan rajaynaynaa labada maamul arrimaha ka dhaxeeya oo danahoodan inay ka wada hadlaan midda guud ee Soomaaliya iyo waxyaabaha ku soo siyaaday iyo horumarka siyaasiga ay hadda jiraan inay iska wadiyaan maadaama xilli gabaabsi oo kala guura xukuumadda hadda ay ku jirto shuruuc badan oo runtii wada tashi laga sameeyna aad moodid in dowladda dhexe ay si loo boobsiinayo ugu muhiimsan tahay xeerka batroolka iyo xeerka doorashooyinka oo labaduba Puntland ay muwaaqif ka qaadatay laakiin anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Puntland waxaan rabaa inaan halka uga cadeeyo shacabka iyo madaxda Jubbaland inay Puntland garab istaag ugu dambeyntii muwaadiniinta Israa'iil ee ku dhaqan Itoobiya ayaa looga digay weeraro al-shabaab ay ka geystaan dalkaasi Israa'iil ayaa sheegtay in ay jiraan cabsiyo xoogan oo ay ka qabaan Itoobiya in ay weeraro ka geystaan al-shabaab maadaama ay ku sugan yihiin muwaadiniintooda waxayna sheegeen in iyagu marnaba dan aanay ugu jirin in muwaadiniintooda weeraro loo geysanayo Itoobiya ay dhibaato ka soo gaarto waxaana Israa'iil ay uga digtay muwaadiniinteeda in halkaa ay sida ugu dhaqsiyaha badan kaga soo baxaan isla markaana foojignaan dheeri ah ay sameeyaan maadaama la filan karo in halkaa al-shabaab ay weeraro ka geystaan warkii aad kala socoteen daawadayaal madasha wararka intaa ayaan ku soo koobaynaa warkan warka xiga intaanu ku kulmayno nabadgelyo